Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel, an intermediate course, level 2. Topic about the holy month of Ramadan. In the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. All praise is due to the Almighty Allah who made it possible for me to talk about the holy month of Ramadan as a topic. As we all know, Ramadan is a holy month of fasting, introspection, and prayer for Muslims. The followers of Islam, it's celebrated as the month during which our Prophet Muhammad, peace be upon him, received the initial revelation of the Quran. The holy book for Muslims. Fasting is one of the 5 fundamental principles of Islam. Each day during Ramadan, Muslims do not eat or drink from dawn to sunset. They are also supposed to avoid impure thoughts and bad behavior. Muslims break the daily fasts by sharing meals with family and friends, and the end of Ramadan is celebrated with a 3-day festival known as Eid al-Fitr. One of Islam's major holidays, Ramadan always falls on the 9th month, the 12th month Islamic calendar. Ramadan 2022 began at sunset on Saturday, April 2nd, and will end on the evening of Monday, May 2nd, as estimated if Allah wills. Topic موضوع about ku saabsan the holy month of Ramadan, bisha barakaysan ee Ramadaanka. In the name of Allah, magaca Alle ayaan ku bilaabayaa, the most compassionate, kaasoo naxariis badan, and the most merciful, cafiis badana leh ama naxariis gaara leh. All praise is due to the Almighty Allah. Mahadoo dhan waxay u sugnaatay Allaha awoodda leh who made it possible for me, kaasoo aniga ii suurtageliyey to talk inaan ka hadlo about wax ku saabsan the holy month of Ramadan, bisha barakaysan ee Ramadaanka. As we all know, sidaan gebi ahaanteen ogsoonnahay, Ramadan is a holy month, waa bil barakaysan of fasting la soomo. Introspection, naftoo la imtixaano, habdhaqankeedii waxay ku jirtay iyo fikradihii dareenkii dhan laga xakameeyo. Introspection and prayer, iyo duco ama in la cibaadaysto loo tukado for muslimiinta ay tukadaan ama cibaadaystaan. The followers of Islam, raaciyaasha Islaamka oo dhan, it is celebrated, waxaa loo dabaaldegaa as the month, sida bisha during inta lagu jiro witaasoo our Prophet Muhammad, nabigeena Muhammad, peace be upon him, calayhi salaatu, received u gudoomay ama helay the initial revelations, waxyigii ugu horeeyo bilowga of the Quran ee Quraanku kusoo degay. The holy book, buugga barakaysan ama kitaabka for Muslims ee muslimiinta. Fasting soomida is one of waxay ka mid tahay the 5 fundamental principles, shanta mawaadii ama caqiido ee gundhiga u ah ama asaasiga of Islam ee Islaamka. Each day, maalin walba, during Ramadan, inta lagu guda jiro Ramadaanka, muslimiintu do not eat, ma cunaan or drink ama ma cabaan from dawn to sunset, ooga hore waa beriga ilaa iyo gabaldhaca ama qorax dhacda. They also supposed, taa waxaa looga baahan yahay to avoid, inay ka fogaadaan impure thoughts, fikradaha aanan taqiga ahayn, saafiga ahayn oo fuxshiga munkarka ah. Impure thoughts, fikradaha munkarka ama fuxshiga, the opposite of pure.
They are also supposed waxaa xitaa looga baahan yahay to avoid inay ka fogaadaan impure thoughts fikradaha munkarka ama fuxshiga and bad behavior iyo habdhaqanka xun. Muslimiinta break waxa ay jabiyaan their daily fasts soonkooda maalinlaha by sharing ayagoo ku wadaagayo meals cunno with family and friends saaxiibada iyo qoysaska. And the end dhamaadka of Ramadan is celebrated waxaa loo dabaaldegaa with a 3-day festival 3 maalmood oo damaashaad ah ama ciid ah known as loo yaqaano ama loo garanayo Ciidul Fitri. One of mid ka mid ah Islam's major holidays fasaxa ugu weyn ee Islaamka. Ramadan always falls on wuxuu kusoo aadaama kusoo dhaca the 9th month bisha 9aad the 12th month Islamic calendar jadwalka islaamiga ee bisha 12aad. Ramadan 2022 2022 began wuxuu bilowday at sunset qorax dhacigii on Saturday habeenkii Sabtida soo galayay April 2nd bisha 4aad and will end wuxuuna dhammaan doonaa on the evening fiidka of Monday ee habeen Isniina soo galayso May 2nd bisha 5aad as estimated sida la qiyaasay if Allah wills hadduu Eebbe yiraahdo. I